Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhammaan daawadayaashayda sharafta leh ee ku xiran janalkayga. Qisada Yahuudi Alle subxaanahu wa tacaala ka dalbatay inuu samada ooga soo dejiyo maa'ido ay raashin ku jiraan. Maa'ido waxaa loola jeedaa saxan ama weel ay ku jiraan raashin la cuno. Markii loo soo dejiyeyna waxaa dhacday arrin la yaab leh oo lama filaan ah, bal daawo oo la soco wixii dhacay. Waxaan in badan maqalnay iyadoo la sheegayo maa'idadii Nabi Ciise ee samaawiga ahayd, ama maa'idadii uu Alle subxaanahu wa tacaala ooga soo dejiyey samada, balse waxaan filayaa in aadan helin cid si dhammaystiran kaaga warrantay waxa ay ahayd maa'idadaani. Maxay ahayd saxankan qisadiisa? Raashin nooce ah ayaa ku jiray? Xaguuse ka soo degay? Maxaase u sabab ahaa in uu soo dego? Ma samada ayuu ku laabtay mise dhulka ayuu weli baaqi ku sii yahay? Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo kulmiyey dhammaan su'aalahaas jawaabahooda oo dhammaystiran, iyo weliba maa'idada qisadeeda oo dhammaystiran iyo sababta loo soo dejiyey. Daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala nabigiisa Ciise calayhi salaam u soo diray Banu Israa'iil si uu ugu hanuuniyo in ay Alle rumeeyaan subxaanahu wa tacaala oo ay caabudaan Alle keligiisa. Wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala nabigiisa Ciise calayhi salaam ku ayiday tiro mucjizooyin ah intii uu dhex joogay qowmkiisa. Midda ugu horreysay mucjizooyinkiisa ayaa waxay ahayd in uu ku hadlay dherabta si uu u difaaco hooyadiisa sharafteeda, isagoo weliba aad u yar oo markaas la dhalay. Kadibna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala awood u siiyey in uu Alle idinkiisa dib ugu soo nooleeyo wixii dhintay. Iyagoo la tusiyey waxaasoo mucjizooyin ah, haddana Banu Israa'iil waxay ahaayeen qowm aad u dhib badan oo faasiqiin ah. Waxay dilal u geysan jireen ambiyadii Alle subxaanahu wa tacaala, sidoo kale mucjizooyinkana waa ay beenin jireen. Sidoo kale, kuwii ugu caansanaa mucjizooyinkii Nebiyullaahi Ciise calayhi salaam waxaa ka mid ahayd soo dejintii qowmkiisa samada looga soo dejin jiray maa'ido ay ku jiraan noocyada ugu wanaagsan ee cunnooyinka. Waxaa jiri jiray koox mu'miniin ah oo ka mid ahayd Banu Israa'iil oo la odhan jiray xawaariyiinta, waxaana la sheegaa in ay ahaayeen 12 nin. Waxay ahaayeen kuwii ugu iimaanka adkaa Banu Israa'iil ee rumeeyey Alle iyo rasuulkiisa calayhi salaatu wassalaam. Waxay ahaayeen kuwo iska daahiriyey munaafiqnimada iyo kufriga. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu Nabi Ciise calayhi salaam ku amray in ay soomaan 30 maalmood si ay Alle ugu dhowaadaan subxaanahu wa tacaala oo ay amarkiisana u fuliyaan. Wuxuu ku yidhi, ka warrama haddaad Alle u soontaan 30 maalmood, kadibna aad weydiisataan waxaad doontaan oo uu isaguna idin siiyo. Qofkii shaqeeyana wuxuu mushaar ama ujro ku leeyahay qofkii uu u shaqeeyey. Markaas bay sameeyeen sidii uu nabigooda ku amray, kadibna waxay ku dhaheen, yaa Ciise, waxaad nagu tidhi shaqaaluhu wuxuu mushaar ku leeyahay qofka uu u shaqeeyey. Waxaadna nagu amartay in aan soonno 30 maalmood. Waan sameynay oo waan soonnay. Qofka aan 30 maalin u shaqaynana waa in uu raashinna siiyo marka aan dhammayno hawsha. Rabbiga ma awoodaa in uu samada nooga soo dejiyo weel ay raashin ku jiraan? Allena subxaanahu wa tacaala wuxuu qur'aanka dhexdiisa inoogu xusay aayado ka warramaya qisadan, wuxuuna yidhi: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نبي حس markii ay xawaariyiintu Nabi Ciise ku dhaheen, Ciisow, Rabbiga ma awoodaa
inuu maa'ido nooga soo dejiyo samada. Markaas buu Ciise ku yidhi, war alle ka baqa subxaanahu wa tacaala haddaad mu'miniin tihiin. Xawaariyiintu waxay doonayeen in ay xaqiijiyaan iimaankooda inuu xaq yahay, iyo in maalinkaas uu u noqdo maalin ciid ah oo farxad geliya quluubtooda oo ay u dabaaldegaan sanad walba. Waxayna sidaas dalbadeen kadib markii ay 1 bil oo kaamil ah guteen cibaadada soonka. Waxay kaloo doonayeen in ay u siyaado yaqiintooda ay alle yaqiinsanaayeen subxaanahu wa tacaala. balse wuxuu nabiyullaahi ciise calayhi salaam qowmkiisa uga baqay in ay ku shukrin waayaan haddii uu alle subxaanahu wa tacaala uga baryo oo loo soo dejiyo wixii ay dalbadeen. kadibna sidaas darteeda uu alle subxaanahu wa tacaala ugu caroodo qowmkiisa. sidaas darteed ayuu nebi ciise calayhi salaam ku dhaqaaqay in uu u naseexeeyo oo uu waaniyo qowmkiisa ka hor inta uusan alle uga dalbin in uu ku soo dejiyo maa'idada. wuxuu ku yidhi, qowmkaygiyow, rabbigiina ka cabsada, kana baqa in uu alle subxaanahu wa tacaala cuquubo idinku soo dejiyo qowlkiina dartiisa. allena subxaanahu wa tacaala ma jiro shay uu doono oo uusan samayn karin ama caajis gelinaya. shakigan aad qabtaan in alle subxaanahu wa tacaala uu awoodo in uu samada maa'ido idinkaga soo dejiyo waa mid kufri ah. alle ka cabsada subxaanahu wa tacaala, kana baqa in uu idinku soo dejiyo caradiisa. balse wacdigiisa waxayba ka sii qaadeen in ay ku sii adkaystaan dalabkooda oo ahaa in ay helaan maa'idada. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. waxay dhaheen, waxaynu doonaynaa in aan wax ka cunno iyo in qulubteennu ay ku degto iyo in aan ogaanno in aad run inoo sheegtay oo aad nebi tahay, iyo in aan indhaheena ku aragno oo aan markhaati ka noqonno aayadda alle subxaanahu wa tacaala. warkan ayaa sababay in nebi ciise calayhi salaam uu u tadarruco rabbigiisa subxaanahu wa tacaala, kana dalbado in uu maa'ido oogu soo dejiyo sidii ay u dalbadeen qowmkiisa. qaala ciise bnu maryam, اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. ciise bnu maryama wuxuu yidhi, ilaahayow samada maa'ido inooga soo deji si maalinkaas uu inoogu noqdo maalin ciid inoo wada ah, innaga iyo kuwa inaga dambeeyaba, iyo aayad xaggaaga ka ahaatay. markaas buu alle subxaanahu wa tacaala ka aqbalay ducadiisa, wuxuuna samada ooga soo dejiyey maa'ido ama weel uu raashin ka buuxo. wuxuuna uga digay qofkii ku kufriya markii uu mucjisadan arko kadib in uu mutaysan doono ciqaab iyo cadaab aad u weyn. qaala allahu innii munazziluhaa calaykum faman yakfur bacdu minkum fainnii ucadibuhu cadaaban laa ucadibuhu axadan min alcaalamiin. alle subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi, waan idinkugu soo dejinayaa maa'idada, balse qof idinka mid ah haddii uu intaas kadib igu kufriyo oo ka shakiyo waxdaaniyadayda iyo ciise nebinimadiisa, waxaan cadaabi doonaa cadaab aad u weyn oo aanan cadaabin qof kale oo caalamka ka mid ah. dadkuna waa ay taagnaayeen oo waxay daawanayeen maa'idada iyadoo ka soo hoobanaysay samada. waxayna markii ay soo degaysay ku socotay 2 daruurood oo madmadow dhexdooda. markii ay maa'idadu ku soo dhowaatay dhulka ayuu nebi ciise calayhi salaam bilaabay in uu alle subxaanahu wa tacaala ka baryo in mucjisadan uusan qowmkiisa uga dhigin caradiisa iyo xujadiisa, balse uu uga dhigo naxariis iyo mid ay ku kaaftoomaan oo barakaysan.
markii ay maa'idadu dhulka ku soo degtay ayay dadku isugu yimaadeen dusheeda, waxaana la sheegaa in maa'idada ay ku jireen 7 malaay iyo 7 muufo iyo khal iyo rummaan iyo khudaar kale. waxaa kaloona la jiray zaytuun iyo hilib. balse xawaariyiintu waa ay diideen in ay wax ka cunaan, iyagoo ka baqay in ay ku noqoto cuquubo xagga Alle subxaanahu wa tacaala ooga timid, ama fitno loogu soo diray ku dhiiranaantoodii ay ku dhiiradeen dalabkooda awgii. markii uu Nabi Ciise calayhi salaam arrintaas ka arkay, ayuu wuxuu isugu yeeray fuqaradii iyo masaakiintii iyo kuwii xanuunsanaa iyo kuwii juudaanka qabay iyo kuwii curyaamiinta ahaa iyo kuwii aragga la'aa dhammaantooda, wuxuuna ku yidhi, wax ka cuna arsaaqda rabbigiina iyo ducada nebigiina, kadibna Alle uga mahadceliya subxaanahu wa tacaala. markii ay cuneen, waxaa ku wada caafimaaday kuwii xanuunsanaa iyo kuwii baahiyaha gaarka ah qabay dhammaantooda. sidoo kale wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala hodan ka wada dhigay oo xoolo fara badan siiyey kuwii fuqarada ahaa ee weelkaas wax ka cunay. markaas baa waxaa wada shallaayay kuwii aanan weelka waxba ka cunin. kadib markii ay arkeen barakada iyo hodantinimada ay heleen kuwii maa'idada wax ka cunay. markii ay dadku arkeen wixii ay heleen fuqaradii iyo kuwii xanuunsanaa, waxay dhammaantooda u soo wada jeesteen weelka ama maa'idada. ma jirin cid ka hartay, saqiir iyo kabiir, qani iyo faqiir, dhammaantooda waa ay ka wada cuneen. markii dhammaantooda ay ka wada cuneen, ayay maa'idadii maalinkaas ku laabatay samada, waxayna dadku daawanayeen iyadoo ka sii fogaanaysa araggooda ilaa ay ka libidhay ama ay ka qarsoontay. wuxuuna Alle subxaanahu wa tacaala maa'idadan ku amray in ay sii wado ku soo degistooda. waxay ahayd mid maalin walba maalinkiiba hal mar soo degta, markaas bay dadku wax ka cuni jireen dhammaantooda. waxaana maalin walba wax ka cuni jiray ku dhowaad 7,000 oo ruux. qofka ugu dambeeya ee maa'idada wax ka cunana wuxuu la mid ahaa qofkii ugu horreeyey. cuntadu ma aysan ahayn mid ka nuqsaamaysay ama ka dhammaanaysay, waxaana sidaas la ahaa ilaa laga gaaray 40 maalmood. markii Nabi Ciise qoomkiisu ay la qabsadeen oo ay caadaysteen, ayuu Alle subxaanahu wa tacaala doonay inuu ikhtibaaro ama tijaabiyo iimaankooda. markaas buu Alle subxaanahu wa tacaala nabigiisa Ciise calayhi salaam ku amray inuu qoomkiisa u sheego in maa'idada loo daayo oo ay ka cunteeyaan fuqarada iyo masaakiinta oo keliya. balse kuwii ladnaa ee maalqabeennada ahaa iyo munaafiqiintii ka mid ahaa qoomka lama aysan dhicin arrinkaas. waxayna bilaabeen in ay la collowtamaan fuqarada oo ay ka maseeraan. intaas kadibna si toos ah ayuu Alle subxaanahu wa tacaala uga wada joojiyey gebi ahaanba maa'idada. kuwii isaga ku caasiyeyna wuxuu Alle subxaanahu wa tacaala u wada beddelay daanyeero iyo doonfaaro. sidaas ayayna ku dhammaatay qisadii maa'idada. kuwii Alle subxaanahu wa tacaala ku gaaloobay waxay ku noqotay shallayto iyo cawaaqib xumo. kuwii mu'miniinta ahaana waxay u noqotay arsaaq iyo naxariis iyo aayad uga timid xagga rabbigooda subxaanahu wa tacaala. shakina kuma jiro in banu Israa'iil ay isku dayi jireen in ay xujeeyaan ambiyada Alle subxaanahu wa tacaala. waxay arkayeen intaasoo mucjiso oo uu nebiyullaahi Ciise calayhi salaam hortooda ku samaynayay Alle idinkiisa subxaanahu wa tacaala. balse haddana nasiib xumadooda ugu dambayntii ma aysan rumaynin oo waa ay ku gaaloobeen. waxayna isku dayeen in ay dilaan nebiyullaahi Ciise calayhi salaam oo kadibna ay salbiyaan ka hor inta uusan Alle subxaanahu wa tacaala xaggiisa u rafcinin ama uusan u qaadin xagga samada. wuxuuna nebiyullaahi Ciise calayhi salaam soo laaban doonaa aakhiru zamaanka si uu isaga bari yeelo oo uu Alle hortiisana ku sheegi doono ama ku sheego in uusan cidna u sheegin in uu isagu ilaah yahay, balse uu u sheegay in uu yahay rasuulkii Alle subxaanahu wa tacaala.
markan waxaa in lagu baraarugo mudan in banu Israa'iil ay maacidada dalbadeen markii ay soomeen 30 maalmood kadib, waxaana la sheegaa in maalmahaasu ay ahaayeen bisha Ramadaan naftirkeeda, taasoo inaguba aan xilligan soonno. waxaana la sheegaa in Ciidul Fitrida bilowgeeda ay ka bilaabatay maacidadaas oo ka imaanaysay samada, si mucjisadaas aadka u weyn looga dhigo mid weligeeda jirta oo la xasuusto. balse munaafiqiinta iyo kuwii mushrikiinta ahaa ee Alle subxaanahu wa tacaala ku gaaloobay waa ay qariyeen xaqiiqadaasi, waxayna bedeleen aayadihii ku yaalay Injiilka iyo Towraadka si aanan kutubtooda looga helin daliil muujinaya in diinta Islaamku ay tahay diinta saxda ah. اللهم اهد عبادك إلى طاعتك وامنن علينا بالرزق الوفير وأغننا بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك وأحسن خاتمتنا يا رب العالمين. daawadayaasheeda sharafta leh, waxaan filayaa in aad ka wada faa'iidaysateen qisadan. haddii aad ka faa'iidaysatay, fadlan ha iloobin in aad like saarto oo aad la sii wadaagto asxaabtaada. haddii aad nagu cusub tahayna, fadlan ha iloobin janalka inaad subscribe saarato si aad inoo dhiirageliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.